السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قلنا نعيم دعاء ما أنتم حكوا سوقنا هاي هنبين كاونتي كورت هاوس. هل كانوا حمانت محكمة لو صار يا قبل داو تقانان ما مليون أو إن بدن لقينا سواي وضدك هراسمنت إيه دباط إيه أفلقات إن بدن كويسي مليون محكمة دن ما أنت ضدك اللي صار هاي وحكوا جرا ولا الكيت وحكوا جرا إسلامتي أبيهد وكلمتي وسجال كويل أول شيء أبيهد أفرت الكسر كبنا إسقابين إن مليون محكمة دان ما أنت إسارن هاي وأمرك طبعاً إلا يجون إن أرنتي هذي وادي ويدي جون أيام ماشين ليمي لحد حادين ميري يربع يمي وحالي ردت كان لبعض كده هراسمتي كتشوجي إن وحي تبيسي كورت أور كي بتبيسي إن هشيسكي لقلي أي تبيسي ما أنت حالة دي أضي وادك هاي كل جيتنا ويأهيد قفنا لمسعن كل جيت أي أهيد لا وقف أيام ما أنت محكمة الصار وولا الكيد إيوه إسلامتي أبيهد وكلمتي وآيدد أهيد قديجة الله صار قشين إن بدلنا أي مرة والبترة هذا كوب أي وجب حسي فيسبوك يوتيوب مركا أرنتا محي أطهي ما أنت ماشي على وكلا بحياة وأنا الشرع الدهر وردنا شرع لا لجوجا قفك إن دينيا لوسو حد قد بؤس معديسة أحلى شيء ما عرفت اللي بحتله حاجر يوحو أهين لو شيغو ودن كان حتى قفك كتلمامتid inuu xagjir yahay airboodada ayaa lagu qabsanayaa noloshiisa ayaa ciriiri galaysa security kuwa ma arkin federaalka ayuu galaya marka noloshiisa xirikiri galaysa marka dad baa waxay yiraahdeen qof ma iska deysid adoo iska deyn kara ayaa hadana dawladii ku deynaynin qofka marka waxyaabaha lagu tilmaamo xagjirka inuu yahay waa inuu istifaaco ayadiina maanta waxa laga rabaa cadeyn inay keento dadkan ay ku tilmaantay inay xagjir yihiin sida islaanta qadiijo maama qadiijo oo ka dhintay milyan aabaheed inay xagjir tahay walaaladeed ayaa meesha la saaran maxkamadda maanta qolkaas ay maanta waa lagu dhagan yahay xaaladda maanta waa la kala baxayaa kaligeed ayaa meesha timi يعني dadkii u sacabtumay YouTube iyo Facebook u sacabtumay wadankan wadan laga shaqeysto waaye this is the land of opportunity shaqooyin dadkaas uma jeedin waa dadkaas gaalada as u shaqeysanayso uma jeedaan saaka 8 iyo soo sharmaadeen lacag xalaal ay shaqeysanayaan laakiin inaad baad sheekadii daahir cali soo YouTube ka qofka soo galiyo waa inuu baad isiiyaa sheekadeedu waxay noqotay baad qofkaan lacag isiinin waan caayaya marka inay shaqeysatay ahayd waa qof xooga waa inay shaqeysato qof waa inuu shaqeystaa ma aha inuu ka dhigto shaqo inuu dad caayo ma aha inuu shaqo ka dhigto ma aha marka qolkaas maanta milyan oo kaligeed ah iyo dhinaca kale oo 10 qof ah iyada kaligeed bay timi qof ma soo raacin she's alone yani beertu waa la soo galiyay waana looga baxay marka marka wadankan qofka hada iska deyn lahayd xataa qofka marka ku tilmaantid argagixisa inuu yahay muslimiinta aad ayaa loo ilaashadaa oo erboodada xataa fiiro gaar ah lagu leeyahay waxa ku dabagalaya kuwa federaalka waxa ku dabagalaya adduunyo dhan marka qofku waa inuu istifaaca oo waxuunan ahayn ma iraahdo ma ihi uu dhahaa iyadina cadeyntii laga rabaa meesha aad ayaa loogu dhagan yahay xaaladda wallahi serious ay taagan tahay waxaa la sheekadan haday sii socoto ama ma sii soconaysa criminal record in loo geliyo saa u ogtihiinba milyan barito meesha naftigeeda wiilkeeda ayaa ballan ku leh oo xiran oo in muddo badan xirnaa oo ma aragtay muddo badan xirnaa 14 goorna la xiray marka milyan ilmaheeda saas u dayacan yihiin ma milyan magaaladan waa gubatay magaaladan dadkii ma nool eber isbaaray u dhigatay qof walba waxay ku leedahay waa in inta soo kun isiisa hadaad bisiinin Facebook iyo YouTube ka soo caayaya meesha laga shaqeystaa this is America ma garatay shilmaan yar inaad dadka shaqeysan kartid aad dadka ku ciidid ma aha marka insha Allah markay dadka soo baxaan sheekada maanta aad la isugu dhagan yahay
la isku dhagan yahay. It's a serious waxay cashar u tahay tan qof kastoo moodaya intuu soo galo social media inuu YouTube sentiye ka raadsado dadna ku caayo ayay cashar u tahay. This is a lesson. wax ku qaata wadankiina yaa soo gubteen sharci darro iyo balaayo looga yimi halka aan waxaan rabnaa inaan peace ku noolaano ma garat ma rabno harassment ma u baahnin sharciga yaala sharciga la tigsanaa meesha la isma dilo mindiya la iskuma qaato hadal la iskuma qaato laakiinse qalin iyo buug ya meesha qalin iyo buug ka shaqeeya xaasoo dhan u jeeda waa courthouse ka Hennepin courthouse Minneapolis dadka soo socdo oo u maleynayo this is a lesson to everyone oo Facebook intay soo galaan wadanka aad joogto sharcigiisa la tigso is a defamation of character qof ina caydid bahdishid waxaad gudubtid is against the law ma baahna waxaa laga rabaa qofka in amnigiisa ammaan aad siisid sheekada waatana wallahi waan isku dhagan yahay xaaladdu waa jiq bay ku tahay bilyan kumanaan kunna meeshaan lagu bixiyay waxaas waxay u sameynaysaa milyuun dhaqaale lacag la'aan ay dadka ay waxay ku sheegaysaa waa been so she can make money of other people misery iyo ku caayayso si lacag ugu samayso iyadoo shaqaysan karta meeshaasay ku jirtaa milyuun qolkaasi 359 halkaasaa maxkamad lagu saaraya arrintu waa aad bay u adag tahay almost 2 saac ka badan waa ku jirtaa ani waan yara daalay wanaagka u soo baxay qofka ma kacayn kartid absolutely not ma caayi kartid qof أنا وش شرعي مودنا كيان إنه مال بيال صومالي حتى يال قفك وحاول ما حد قد بكرتد عردي معاي كرتد ما أفلق هادين كرتد وحو أهنكم مديه كرتد all this for the sake of money إذا كان العجلة تعال مريكنا عودها all you need to do ناش قيستد نتكاس أدرن سو مجد وحاسو ضدأ وحاسو أوفيس وشقيسنا يعني فأنت الشروف الأرضي صبحي صبح شقيسو يا إرساق يا فرتاح شقيسو لكن أنت أقل مقدس كسو حيرت يوتيوب مربى قف كسو علي no absolutely not unacceptable لما أباهم شرعي كان الملتك سنايا and this is a lesson to everyone حيقطع هاي تتقوم علينا ما عرفت freedom of speech الوير ويجرته لكن to a limit freedom of speech معها إن تقف كأفلق هاديسي توريدي فيسبوك سو قرتد دتكي سعيدت ما عرفت أرجع حسك ويرتد it's not freedom of speech الله ده هو كتير مليون لبي لا تسأل بدك أنت هل حد بالإنجليزي ما تقعنا مركب وقت اللي يكون لهم يسو يوتيوب يدك عيدو أي وعقوا أدفايس كرين لها إني ما عرفت نفتي ذو حقوق بسطة سكول آدو دكسي آدو ومدة أماسي سمعت وقت بدنا قعدت كويسة ورفرية دقنت هاي ماشي أنا كشقينا إنه ورفرية دولة السيسة وحنا كعرف ما أدرسيه ستيل ماشي الحمد لله كله لايت أي dadkii ku foofta dadkii ku foofta lama baahno xas wallahi xaaladdu waan badaalayba meeshaan waxaa kula jira walaalkeed aabaheed dhalay walaalkeed islaantii aabaheed ka dhintay yacni come on iyo dad kale oo badan almost 10 kalena way soo socdaan sheekadana waxay ku gaari kartaa criminal ma garat bamba ma soconayso thank God for the law and order thank God for law and order dadka daciifka ah oo straight from nomad baadiyaanka ka imaadaan mareykanka intay yimaadaan u maleynaya inay ma aragto waxay rabaan sameyn karaan freedom of speech come on aku kana maanta intaas xataa sumcad xumo qof weyn oo meeshaan loo soo jiiday maxkamad iyo subxaanallah intaas oo sanaa wadanka deganaa weligay maxkamad qofna ima geyn mana geyn ma garatay hoosaan u degaya sheekadan way dheeraatay ya insha Allah marka laga soo baxo مليون هالسلف
وكليجيت me myself and I كليجيت dadka u sacabtumay aaw inta dad meeshaan ka soo caayay hadhow Facebook ka baryo ee ka tuugsanay dhaysa ma ray caawi hal caawi والله وكاسة حالته وبرد والسكر إن شاء الله هذه صنقنا يا مركي كصبح هذا قطوة بيلي سمرة This is a lesson to everyone. Social media قلنا كفانتين. Use it responsible. ودك الحو استعمالان beneficial things. وناك بعيقلين حبرشة. Only Somali ذو باو استعماشا. إذا بدي الرأي حام قرحنا يا قفا بهدلايا. Please. ودك شرعي يسلا قبصو. لو قد يصبر شرعي قبرا. هدونها أوي. أما أفافر الهواء اللي رمت كيسة بالهواء وأنت كنت دقنتها وفق استور بدنا الشرع لجوجا هلا تكسد everyone needs peace تكينا ما سيسدوا والله حالة دوا برك وأركت ماشان يجرا بعد كنت جالسون قلنا بالله